bismillaahi raxmaani raxiim aqyaarta hawada naga daawanaysa ay waxaad ku soo dhawaataan warkii subaxnimo ee wehelka TV qodobada aad ku daawan doontaan ayaa waxaa ka mid noqon doona hadduu eebbe idmo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo fadhi degdeg ah ka yeelanaya xaaladda guud ee dalka Soomaaliya kadib markii mucaaradka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ay isu maanaafsan yihiin qaabka loo qabanayo doorashooyinka dalka sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan warkeena waxaa ka mid noqon doona midowga Yurub oo ka digay in qalalaase amni loo horseedo Soomaaliya sidoo kale waxaad ku maqli doontaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadal ka soo yeeray xubnaha mucaaradka oo ay sheegeen inaysan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aqoonsanaynin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale qodobada aad ku daawan doontaan warkeena subaxnimo waxa uu noqon doona maxkamadda caalamiga ee ICJ oo hoggaan cusub loo doortay iyo ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland oo gacanta ku dhigay xubno ka tirsan al-shabaab iyo daacish kadib howlgalla ay ka sameeyeen gudaha magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warkeena subaxnimo ee wehelka TV u diyaar garoow warkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno qodobka ugu horeeya ee saaki golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo talaadaha kuna beegan 9 February 2022 fadhi ka yeelanaya qalalaasaha siyaasadeed ee Soomaaliya kadib markii isniintii dhinacyada mucaaradka ay sheegeen in muddaxileedkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu idlaaday isla markaana ay ugu yeeriyaan madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha ammaanka ayaa fadhigan oo albaabada u xiran yeelanaya ayaa ka go'aan gaaraya waxa laga yeelayo xaaladda Soomaaliya waxaana soo jeedintan codsatay boqortooyada Ingiriiska oo ka mid ah 5 dawladeed oo joogtada ah waxyaabaha keenay kulanka degdega ayaa lagu sheegay in xubnaha mucaaradka ay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tilmaameen inuusan sameyn hagis iyo jihayn siyaasadeed oo dhanka doorashooyinka iyadoo muddaxileedkiisa uu dhamaaday warbaahinno kala duwan ayaa daawacay in fadhigan lagu dejinayo qorshe siyaasadeed laguna cadeynayo jihaynta xaaladda Soomaaliya si looga fogaado qalalaasi iyo muran oo ka sii dheeraada meesha uu hadda u joogo qaramada midoobay waxay wali u aragtaa inay kulmi karaan hogaamiyaasha Soomaalida oo ay u heelan yihiin dhowrista nidaamka waxayna si adag u wada shaqeyn karaan dhisidda hay'adda dastuuriga sidaasi waxa yiri afayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay wada hadalka dhammaan dhinacyada arinta ay quseyso waa lama huraan waa in la helaa heshiis cad oo ballaaran kuna saabsan halka loo socdo iyo dhabaha loo mariyo London ayaa qorsheynaysa kala fadhi looga doodiyo amniga iyo xasiloonida Soomaaliya oo ku taariikhaysan 22 February ka hor intaan la cusboonaysin howlgalka midowga Afrika ee AMISOM oo ku beegan 28 February sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda Ingiriiska dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa September 2020 ku heshiiyay doorashada dalka ka dhacdo kadib kulamo kala duwan oo ay ku yeesheen Muqdisho iyo Dhuusamareeb waxaana ku raacay baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya balse dhaqangalkiisa ayaa caqabad noqday kadib markii dhinacyadii saxiixay caqabado iyo shuruudo ay soo dhigeen laga gudbi waayay balanka doorashada ayaa ahaa inay bilaabato dhamaadka sanadda 2020 isla markaana la soo gabagabeeyo bilowga sanadka 2021 laakiin rajadaasi sooma dhaafin miiska wada hadalka uu ka dhacay ee heshiiska lagu gaaray wali arrimaha doorashooyinka dalka ayaan ku jirnaa midowga Yurub oo ka digay in qalalaaso amni loo horsado Soomaaliya wakiilka arrimaha dibadda ee midowga Yurub ayaa soo saaray bayaan ku saabsan heshiis la'aanta ka jirta arrimaha doorashooyinka dalka bayaan uu soo saaray wakiilkaasi ayaa loogu digay muddo kororsi aan arrimo farsamo ahayn iyo waliba isbabariyaac dhinaca doorashooyinka dalka qoraal ka soo baxay midowga Yurub ayaa u qornaa sidan islaanta in la qabto doorasho ka dhacda Soomaaliya waa mid culus oo aan dan ugu jirin muwaadiniinta Soomaaliyeed waa muhiim in dhammaan ka qaybgalayaasha ay si wadaan inay si wax ku oola ula shaqeeyaan si ay heshiis u hirgeliyaan geedi socodka doorashooyinka qaranka hogaamiyaasha siyaasadeed waa inay si wadaan dadaalkooda ku aadan hirgelinta heshiiskii 27 September geedi socod kasta oo isbarbar socda ama muddo kororsi aan ahayn qaab farsamo ahaan waxaa loo tixgelin doonaa dib u dhac xoogan ayaa lagu yiri warka ka soo baxay midowga Yurub ismarwaaga siyaasadeed ee hadda jira waxa uu dhaawacayaa kalsoonida midowga Yurub ee horumarka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo hogaamiyaasha xubnaha ka ah dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka Soomaaliya waxa looga baahan yahay inay xaliyaan ismarwaaga siyaasadeed ee khatarta ku ah mustaqbalka Soomaaliya iyo sida ugu dhaqsiyaha badan loo qabto doorasho
dhinacyadoo dhami waa inay muujiyaan hoggaan oo ay tixgeliyaan danaha dadweynaha kana fogaadaan hadallada iyo ficilada hurin kara rabshadaha ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka ka soo baxay wakiilka arrimaha dibadda ee midowda Yurub. xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka jawaabtay hadalkii ka soo yeeray midowda musharaxiinta dowladda federaalka Soomaaliya ee ahaa in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aysan u aqoonsanaynin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya oo muddo xileedkiisu dhamaaday. afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha Farmaajo uu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda uu sii shaqeynayo ilaa madaxweyne cusub laga dooranayo maadaama uu idlaaday muddo xileedkiisa dastuuriga ahaa. Macalimo ayaa sheegay in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay sameeyeen tanaasulaad badan oo lagu doonayo in lagu xaliyo khilaafaadka taagan qabsoomida doorashada dalka ka dhacaysa isla markaana wada hadalka kula jirto dowlad goboleedyada xal waara loo gaaro. waxa uu afhayeenka xukuumadda tilmaamay maamul goboleedyada qaarkood ay diidan yihiin in heshiis laga gaaro doorashooyinka dalka balse dowladda federaalka Soomaaliya ay wado dadaalo xoogan oo lagu xalinayo arrimahaasi. si kastaba hadalka afhayeenka xukuumadda Soomaaliya waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo musharaxiinta ay sheegeen in wixii ka dambeeyay 8 February uu madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxtooyada ugu jiro ay tahay inqilaab uu damacsan yahay waxaana shalay ku ekeed muddo xileedka madaxweynaha. ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Puntland oo gacanta ku dhigay xubno ka tirsan Al-Shabaab iyo Daesh. wararka ka imaanaya gobolka Bari ayaa sheegay in ciidamada ammaanka Puntland ay howlgallo ay ka sameeyeen magaalada Boosaaso ay ku soo qabteen rag la xiriirinayo inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab iyo Daesh. saraakiil ka tirsan hay'adaha ammaanka ee maamulka Puntland ayaa sheegay in baaritaano lagu hayo dadka la soo qabtay inkastoo aan tiradooda la sheegin. saraakiisha laamaha ammaanka Puntland ayaa sheegay dhawaan inay ku raajoogaan rag la xiriirinayo kooxaha Al-Shabaab iyo Daesh kuwaas oo doonaya inay weerar ay ka fuliyaan magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. dadka la soo qabtay haatan waxaa lagu hayaa saldhig ku yaala magaalada Boosaaso kuwaas oo lagu hayo baaritaano hor leh iyadoo laamaha ammaanka ay sheegeen in cadaaladda la hor keeni doono dadka falalka ammaan darida ka geysta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. guud ahaan warkiis waxnimo ee Wehelka TV waa naga intaas.